warkii ay muddo badan sugayeen ayaa loo sheegay taageerayaasha jilaaga Bollywoodka Ranbir Kapoor iyo atirishada Alia Bhatt warkaasi oo qof walba u kululaa in uu maqlo. dadka ayaa ka hadlayay guurka Ranbir Kapoor iyo sidoo kale Alia Bhatt muddo 4 sano, balse haatan labadan jilaa ayaa arrinkaasi maanta soo afjaray. Ranbir Kapoor iyo Alia Bhatt ayaa ugu dambeyn isguursaday. caado dhaqameedka arooska ee dalka Hindiya ee labadan jilaa ayaa maanta la sameeyay. hooyada Ranbir Kapoor oo ah aktarad caan ah ahna xaaskii ninkii amaba toorihii hore geeriyooday la oran jiray Rishi Kapoor, Neetu Kapoor iyo dhammaan qoyska ayaa diyaariyay xafladda arooskaasi. Ranbir Kapoor, walaashiis Ridhima Kapoor, Shahni iyo dumaashigeed Bharat Sahni ayaa kasoo duulay Delhi iyagoo gaaray Bombay. caadooyinka arooska ayaana lagu bilaabay macbadka. qoyska Kapoor ayaa maanta caado loo yaqaano puja ku sameeyay dhismaha Vastu ee magaaladaasi. dhismahan ayuu Ranbir Kapoor kaga nool yahay dabaqa 8aad halka Alia Bhatt ay ka degan tahay dabaqa 5aad. qoyska Kapoor iyo dad u dhow qoyska Bhatt ayaa ka qayb qaatay arooska. cilaansaarka loo yaqaano Mehndi ayaa sidoo kale la dhameystiray. kadib markii Mehndi la sameeyay waxaa jiri doona munaasabada Haldi iyo sidoo kale Sangeet. haddaba mar walba oo laga hadlayo aroosada jilaayada amaba arooska jilaayada Bollywoodka caanka ka ah waxaa mar walba dib loo dhigaa taariikhda arooskooda. horey waxaa sidaasi ay ku dhacday guurka Deepika Padukone, Ranveer Singh, haddana Katrina Kaif iyo Vicky Kaushal. haddana waxay taasi ku dhacday guurka Ranbir Kapoor iyo sidoo kale Alia Bhatt. dhowaan Neetu Kapoor oo xaakim ka ahayd bandhig qoobka ciyaarka ah oo lagu soo bandhigayay arrimo kala duwan ayaa wax laga weydiiyay guurka Ranbir Kapoor iyo Alia. waxayse sheegtay inaysan wax warakeynin. kaliya ma aha Neetu mar Alia qudheeda wax laga weydiiyay xilliga guurkeeda dhacaya waxay tiri waxaan u maleynayaa in dadku ay u baahan yihiin inay xoogaa ka nastaan. sanadkii hore Bollywood waxaa ka dhacay 2 aroos oo qurux badan. waxaan u maleynayaa inay tahay inaan hadda nasanno xoogaa aan daawano aflaanta filimaanta jilno wixii kalena waa la arki doonaa bay tiri. Alia Bhatt iyo Ranbir Kapoor ayaa marar badan lagu arkayay iyagoo jaceylkooda ku muujinayo goob abaalmarin lagu bixinayo, balse labadooduba marnaba kama aysan hadlin xilliga guurkooda uu dhici doono. dhowaan markii Ranbir Kapoor wax laga weydiiyay guurkiisa waxa uu yiri ma waalni oo taariikhda kama sheegayo warbaahinta, balse waxaan idin sheegi karaa in aniga iyo Alia Bhatt aan isqabno. waxaan qorsheynaynaa buu yiri inaan isguursano. waxaan rajeynaynaa in mar dhow ay dhacdo taasi. jaceylka Alia Bhatt iyo sidoo kale Ranbir Kapoor sida uu ku bilowday haddii wax yar aynu ka taabanno jaceylka Alia ay u hayso Ranbir qalbigeeda ayuu ku weynaa ka hor intaysan bilaabin xirfadda waxjilidda ama aysan kusoo biirin shirkadda Bollywoodka. waxayna markii ugu horreysay jaceylkeeda ku sheegtay bandhig soo saaraha Karan Johar ee Coffee with Karan. Alia Bhatt aan yiraahday ayaa aad u jeclayd Ranbir Kapoor. Alia Bhatt ayaa markii ugu horreysay sanadkii 2018 qiratay in jaceylkii keligii ku ahaa uu noqday mid ay isla hayeen Ranbir Kapoor. labadan jila ayaa marka ay isla dhigeen filin waxa qalbiyadooda biyo dhigay jaceylkii ay isku qabeen. qofna ma uusan filaynin laakiin in arrintooda ay guur ku dambeyn doonto qof waliba waa uu la fajacay. sababtuna waa inaan la ogeyn amaba aysan labadan jila shaacin taariikhda guurkooda. dadku waxay u haysteen inaysan labadan isguursan doonin, balse guurkooda kaliya kama uusan yaabin warbaahinta ee wuxuu xitaa dhakafaar ku noqday taageerayaashooda. Ranbir iyo Alia ayaa iskala soo shaqeeyay horudhaca filmaan badan, balse guurkooda kadib ay qorsheynayaan in ay filin isla soo jilaan. haddaba goor dhoweed barteeda Instagram-ka ay ku leedahay Alia Bhatt ayaa waxay ku xaqiijisay in guurkooda maanta uu dhacay iyadoo qoraal kooban halkaasi soo dhigtay. sawiro tiro badanna saaxiibada aadka ugu xidhan bartaasi kusoo gudbisay isla markaana muujinaya arooskooda. waxay leedahay maanta iyadoo hareeraheena ay joogeen qoyskeena, saaxiibadeen iyo dhammaan dadka inoo dhow waxaanu ka dhabeynay bay leedahay go-aan isla markaana aanu soo gabagabeynay muddo 5 sano oo xiriir inaga dhaxeeyay. ugu dambeyn maanta ayaan isguursanay oo isla aqalgalnay. waxay leedahay arrimo badan ayaa ina sugayaa guurka kadib. waan sugi lahay bay leedahay xasuusaha ay ugu yeelan doonto waxyaabaha aynu isla qaadan doono aniga iyo Ranbir Kapoor oo ah jacayl aan dhammaanaynin, farxad iyo sidoo kale wadajir
iyo in aanu waqti badan iskula qaadano filimaanta, waqti badan wada qaadano cunooyinka aan jecelnahay bay tiri. waxay sidoo kale u mahadcelisay qaar ka mid a dadka iyada ku xidhan ee suurtageliyey xafladda caruuska, isla mar ahaantana carooskeeda aan yirahda xafladdaasi aada u soo gebagabeeyey, islamarkaana door weyn ka qaatay. waxaana ay leedahay ugu dambeyn waxaad inoo suurageliseen go-aanka yaga ee guur